shirweynaha reer Waadhowr waxa uu taageerayaa wax walba oo ilaalinaya midnimada wax wada qabsiga iyo walaaltinimada beelaha reer Nuur. shirka wada tashiga beelaha reer Waadhowr ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Boorama. shirkani oo 3 maalmood u dambeysay ka socday hotel Rays gudaha magaalada Boorama ayaa shirkani waxa ka soo qayb galay aqoon-yahan, siyaasiyiin, dhalinyaro, odayaal, waxgarad, ganacsato iyo dhalinyarada kala duwan ee beelahaasi. shirkan ayaa intuu socday waxa lagu doortay guddi ka kooban 45 xubnood kuwaasi oo ka kala socday deegaanada kala duwan ee ku nool yihiin bulshada reer Waadhowr. sidoo kale isla goobtaasi ayaa waxa lagu doortay guddiga hagista iyo horumarinta reer Waadhowr oo ka koobnay 7 xubnood. ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay qodobadii ka soo baxay shirka injineer Axmed Xuseen Shaafici oo loo doortay gudoomiyaha guddiga hagista iyo horumarinta beelaha reer Waadhowr. waxa anigoo ah injineer Axmed Xuseen Shaafici isla markaana gudoomiyaha cusub ee loo doortay ee ka soo baxay go'aankii shirka reer Waadhowr ee ay ka tashigooga kaas oo ay ka soo baxeen 3 qodob oo muhiim ah. waxa weeyaan qodobka koobaad waa shirweynaha reer Waadhowr waxa uu aasaasay guddi hagista iyo horumarinta oo leh hawlo iyo shaqo cayiman. qodobka koobaad. qodobka labaad shirweynaha reer Waadhowr waxa uu taageerayaa wax walba oo ilaalinaya midnimada wax wada qabsiga iyo walaaltinimada beelaha reer Nuur. qodobka saddexaad shirweynaha reer Waadhowr waxa uu ku baaqayaa in si nabadgelyo ah looga qayb qaato doorashooyinka ku soo fool leh dalka Soomaaliland. wabillahi tawfiiq. waxaan u sheegayaa cid kasta oo gudo iyo dibadba joogta in ay shirka iyo mas'uuliyadda iyo xilkaana loo magacaabay guddiga farsamo ee 7 qof in hormoodka u ahay in ay duco iyo khayrna la garab joogaan annaguna aanu ku hagno si alla sidii dan u ah خير وآه ومدى واحتروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.